caalamka ka joogtaan soo dhawaada waa anigoo ah Khalid Cabdi mar labaad iyo mar saddexaad isku soo noqod wanaagsan channelka adiga daawanaysaana waa Khalid Jib fadlan haddii aad ku cusub tahay subscribe channelka sidoo kale like sidoo kale comment iyo wixii ra'yigaaga ka dhiibay channelku waa channelkaagi sidoo kale share oo asxaabtaada la wadaag si ay uga faa'iideystaan walaalahaaga aad iyo aad ugu baahan haddii ay tahay kuwa hilib dhibay haddii ay tahay kuwa talooyinka u baahan ee maxay ahayd niyadda u haya soo asxaabta qaaliga isla socod wanaagsan maanta waxaan sameyn doonaa insha Allah haddii Allah uu ogolaado waa jirko dhan waa markii hore waxaynu soo sameynay bay ahayd lugaha gacmaha dhabarka garbaha gebi waxaas oo dhan laakiin maanta waxaynu wada sameyn doonaa inaga oo wada jir u sameyn insha Allah haddii Ilaahay dhaho jirka gebi ahaan dhabar gebi wax kasta marka insha Allah haddii asxaabta haddii Allah uu ogolaado isla socod wanaagsan amikana waxaan ku bilaabaynaa waxay ahayd qaybta lugaha ku bilaabaynaa lugaha soo kala fidsan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 waxaa loo baahan yahay markasta inaad saa isoo celisid saa isoo celisid sababtoo ah si aad xanuun u dareento sababtoo ah marka aliga markasta aad xanuun dareento waad sii kordhaysaa waxba ku kordhay laakiin mar adan xanuun dareemin hadda iska sameeysid waa cilaad ka daaleysaa marka insha Allah imkana qaybtii labaad baan sameynaynaa lugaha inagoo lugtaadu iyadoo saa u toosan baad saa leedahay 1 2 3 4 5 sidaa ay tahay baad haddana teeda kale saa leedahay adoo istoosinaya mar walba waxaa loo baahan yahay inaad saa u toosnaato 1 2 3 4 5 haddaynu labadaa qaybood kaga gudubno maxay ahaydey qaybta lugaha imikana waxaynu ku siin doonaa hadduu Allah uu ogolaado waxaynu ku siin doonaa dhinacaas iyo sisbaaga oo isku dhaafan ku siin doonaa insha Allah hadduu ogolaado fadlan isku dayna si fiican fiidiyooga uga socodid sababtoo adiga waa ku faa'iido soo imika kaliya waxaa loo baahan yahay sisbaagu kala yahay qaybtaa hoose iyo qaybtaa dhexe way fududahay sida ay ku go'an laakiinse qaybtaa kore ee dhinacan ah way fududahay kuwa hoose siday ku go'an laakiinse kaas iyo kaas kuwa kore siday ku go'an way adag tahay soo asxaabta qaaliga imika haddii la dhaho kaa koraan sameynaa keliya inagoo soo qaadayna madaxeena keliya 1 2 3 keliya madaxa soo qaad 4 5 6 7 8 keliya aag siduu usoo baxay maalinkaas siduu usoo baxay keliya waxaa loo baahan yahay inaad intaa uun ka shaqaysiisid intaa keliya intaasa iska maqnaato sababtoo kani siduu ku go'o way fududahay laakiin kani siduu ku go'o way adag tahay soo imikana qaybtii labaad baan sameynaa hadduu Allah uu ogolaado inagoo adeegsanayna waxaa loo baahan inay intan isaan noqoto intan kalena isaan noqoto markasta inay intan isaan noqoto intan kalena isaan noqoto markasta inay intan isaan noqoto intan kalena isaan noqoto markasta inay intan kalena isaan noqoto sababtoo ah mar aliga marka aad xanuun dareentid waa natiijadaadu dhowdahay soo hadduu Allah uu ogolaado imikana waxaynu sameyn doonaa qaybtaas iyo shafkaan sameynaa hoostaas korka inta waynu sameynaa soo isla socdaa shafka haddii aynu nimaadno wuu kala yahay shafku waxaan sameynaynaa insha Allah hadduu Ilaahay dhaho inagoo gacmeynu soo kala fidsan yihiin waxaynu sameynaa hadduu Ilaahay dhaho inagoo gacmeynu soo isugu dhow yihiin marka ugu dambeysana insha Allah waxaynu sameyn doonaa qaybta saddexaad ee ah boxingka soo isla socdaa waxaan ku bilaabaynaa qaybta gacmaheena oo fidsan so 1 2 shafkaagu dhulka 3
afar shan lix toban sideed sagaal toban. qaybtaas waa ta koobaad oo ah gacmahooda oo kala fidsan. waa intaa hoosta sida si fiican bay u go-ayaan sida raggeeda ah ma garanaysaa. so markana waxaynu ku xirsiin doonaa gacmaheena oo saas waxba aan kala fogin. so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. soo qaybta gacmahaagu marka ay isku dhow yihiin tii hore way kala fogaayeen. taa kala fog waxaa loogu talagalay intaa hoose ee shafka. marka ay gacmahaagu isku dhow yihiin labadaa kore ee shafka, waana qaybta shafka ugu muhiimsan. qaybtaa kore ee shafta ayaa si fiican u go-ayso. markii qaybtii saddexaad waxaynu samayn doonaa insha allah military push-up. military push-up waa iyadoo ah kii feerka hadduu ilaa idhaahdo. soo isla socod wanaagsan kii feerka lookaas. yes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. soo asxaabta qaaliga waxaan rajeynayaa insha allah in aad sida ugu fiican ee ugu quruxda badan aada uga faa'iidaysan doontaan. aniguna markasta insha allah waxaan isku dayaa inaan inii soo gudbiyo fiidiyooyo aada iyo aada u qurux badan oo boqolkiiba boqol ini qanciyo oo aad ka heshaan. so leanna qofka bini-aadanka marka uu helo wax qanciyo oo uu ka helo iyo naftiisu jeceshay isagaana dhaafi karayn. aniguna waan jecelahay markasta fiidiyooyada ugu quruxda badan ee ugu wanaagsan inaan soo dubo. sidoo kale maanta waqtigaan ii saamixin iyo cimiladan ii saamixin way qorneed inay saas dhacdo. waxaan rabay in aan fiidiyo soo duubo banaanka oo sababtoo ah banaanka oon ka helayo alaabaan u baahanoo si fiican idinku ugu fahmaysaan cashirada. laakiin qadarkaa la dhacday barafkaa soo da-ay dhulku qabow buu ahaa. waxaan uri banaanka lama aadi karin. soo asxaabta qaaliga iminka tii ugu dambeysay kaba dambaystan sameynaa insha allah hadduu ilaa idhaado iyadoo ah garbaha mar haddaad dhaambeel haysato iyo haddaad dhaambeel haysato waa xaggeeda. labada dhaambeel saasaan leedahay. saas waa isla samaysaa. ay waa soo celinaysa. 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 waa labada garbood. iyadoo kale haddana waxaad samayn kartaa haddaad dhaambeel ka haysato 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. sidoo kale waxaad qaybta saddexaad aada u samayn kartaa oo ka fudud oo garbaha sida ugu dhaqsiyaha badan ay kugu go-ayaan waa adigoo adeegsanaya qaybta shimbirta. labadaada gacmood saasaad u kala fidinaysaa. saas iyagoo siman baad soo celinaysaa. marbaad saa wada leedahay adana waa soo celinaysaa. marbaad saa wada leedahay waa soo celinaysaa. marbaad saa wada leedahay natiijada sida ugu quruxda badan adarka. iminkana qaybtii ugu dambeysay uuna quruxda badan ee rabo inaan kusoo khatimo hadduu allah wadali ogolaado waxa weeyaan qaybta dhabarkaynu sameynaa iminka hadduu ila idhaahdo. qaybta dhabarka ayaynu ku khatimayna hadduu ila idhaahdo. so haddii aada haysan dhaambeel wax weyn maaha. haddii aada haysan biro aada isticmaasho wax weyn maaha. haddii ay dantu kugu kalifayso inaad haddii aad rabto wixii inaad samayso laakiin wixii helin dhaambeel helin wixii wax weyn maaha. aduu gurigaaga joogaad waxaad samayn kartaa ama adoo meesha aad waqtiga ku qaadanayso jooga ayaa waxaad samayn kartaa sida ugu fudud. iminka eegaa daba dhabarka samayso. dhabarka saa ma tahay sidii qofku shoob samaynayo kale labada gacmood saa u kala fidsanaadaan. saas u taag dhabarka. saa u taagtay saasoo leedahay. markaad isu soo celinaysaa qoorta ayaad saa leedahay. waa inu dhabarkaagu saa u taagaa. saasaad leedahay. dabada taagaysaa. ayba soo jibsan sidii wax buushaab samaynayo kale. dhabarkaas saa leedahay. haddana saasoo leedahay.
بصالين واك أصحابتا قاليا waxaan rajeynayaa insha Allah fiidiyogan iyo fiidiyoyada kale soo socda inaad sida ugu quruxda badan ee ugu wanaagsan aad uga heli doontaan fadlan waxaan ka codsanayaa haddii aad channelka ku cusub tahay fadlan subscribe oo ka mid noqo asxaabta ku xidhan page-ka kana faa'iideysta fiidiyoyadan soo duubo sidoo kale channelka like dheh share dheh oo asxaabtaada intii u baahan la wadaag waa anigoo ah Khalid Cabdi sidaas iyo waxaan leeyahay kulanti dambe oo wanaagsan waa like qaaliga kana faa'iideysi wacan peace and love